sawirkaad u jeedaan ee falaarta ay dul saaran tahay saacadihii ugu dambeeyey si weyn ayuu baraha bulshada u qabsaday. sawirkan waa muuqaal ay soo duubtay Fahme Axmed oo ku caana magaca Fahme Fiicani. gabadhan oo horey loo ogaay dhibaato loo geystay muddana ku jirta xaalad mugdi ah ayaa muuqaalkani markii la arkay dadku inta ugu badan aad bay kaga falceliyeen. si weyn ay dadku kaga hadleen baraha bulshada ayuuna qabsaday. muuqaalkeena waxaan ku eegi doonaa muddo kadib xaaladii adkayd ee murugadii walwalka badnayd ee ay ka soo gudubtay Fahme Fiicani. maxaa xilligani ku soo beegay inay dhar ka dhigato? soo ma ahayn dhibaatadii ay la kulantay mid cibra qaadasho ah? dhibaatadii loo geystay maxay cashir kaga baran weyday? balse muuqaalkan intaan gudagelin waxaan kaa codsanaynaa in la tagto muuqaalkaas saaxiibo badan oo gaaro sidoo kale inagu soo biro fologare page-kan sina shargare muuqaalka oo la wadaag saaxiibadaada kale. saacadihii ugu dambeeyey baraha bulshada waxaa si weyn u haystaa sawirkan aad u jeedaan ee falaarta ay dul saaran tahay oo ah Fahme Axmed oo loo yaqaan Fahme Fiicani. gabadhan xilli adag ayay soo martay baraha bulshada ayayna muddo haysatay. wiil Soomaaliyeed ayaa dhibaato u geystay, muddo ayay la liicaysay. xaalado murugo iyo mugdi badan ayaa soo maray Fahmo, inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyey aad u yaraysay isticmaalka baraha bulshada iyo kasoo muuqashadiisa. haddana markii la arkay dharka ay xiran tahay sawirkaad u jeedaan hadalhayn badan ayuu baraha bulshada ka dhigay. si weyn ayay dadku kaga hadlayaan sawirkan iyo sidoo kale tallaabada ay qaaday Fahme Fiicani. dadka qaarkood waxyaabaha ay u sheegayaan waxaa ka mid ah in Fahme muhiim ay ahayd inay cashar ka barato dhibaatadii ay la kulantay, loona baahnaa inay ku cibro qaadato oo ay noqoto gabar asturan aba xijaaban. balse tani laga wanaagsan yahay oo xaaladahan ay bixinayaan sawir kale. dhibaatadii ay la kulantay weli dadku way xasuustaan Fahme Fiicani. mid murugo badan ayay ahayd oo xitaa ku dhoweysay inay isdisho, inkastoo dadweynaha Soomaaliyeed si guud ay u garab istaageen welibana ay u niyad qaboojiyeen. garabkaasi la siiyey muhiim waxa inay wanaajiso tallaabooyinkan ay qaadayso, qaabka muuqaalkeeda iyo waxa ay samaynayso. dadku waa ay ka niyajabayaan, waxaana mar kale adkaa doontaa in bulshadu ay si siman u garab istaagaan. gabadhu waxay aad u qurux badan tahay inay asturnaato. haddii dhibaatooyin ay la kulantayna muhiim ay tahay inay wax badan ka barato. balse haddii wax cashir ay ka baran weydo xaaladihii murugada badnaa oo ay la kulantay, waxay taasi ka dhigi doontaa in mar weliba ay la kulanto dhibaatadii ay soo martay mid ka xoog badan. asturnaantu dumarku waa uu sharaf iyo qiimo, balse gabdhaha qaarkood ee Soomaalida ayaa aad lagu eedeeyaa in baraha bulshada ay u isticmaalaan si ka duwan sidii loogu talagalay. qaarkood waxa ay banneeyeen jirkooda, taas oo wax laga wanaagsan yahay ah. inta badan dumarka jirkooda bannaanka keena waxay u badan yihiin kuwa jooga meel ka baxsan dalka, ku sugan qaar ka mid a waddamada ku yaala Afrika, Yurub amba Ameerika. sawirka Fahme Fiicani dadku inta ugu badan hadda waxay ku canaananayaan inaysan ahayn qof wax ka baratay qaladkii hore kaga dhacay iyo xaaladihii adkaa oo ay la kulantay.